halkan waa Maracadda Show ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon. aabe ayada oo leh ayay gabar yar ka soo degtay baabuur jiib ahaa oo ay saarneed, waxaana ay ka daba oroday ama ay ka daba carartay aabaheed oo sii gelaya dhismo ku yaala bartamaha Ammaan. orodka gabadha yar waxa uu keenay ayaan darratii ugu xumeed ee sooyaalka Muusaad. howlgalka si fiican ayaa naqshadiisa loo dejiyey, inkastoo sida loo fulinaya ay qaab darneed, balse mid in lagu guulaysto ay ahayd ayuu ahaa. bartilmaameedka in la dilo baa la rabay oo waxa uu ahaa Khalid Mashcal. markaasi Khalid waxaa loo doortay madaxa laanta siyaasadda ee Xamaas. da'diisu waxay ahayd 41 sano jir. waxa uu ahaa injineer kombiyuutarada ku takhasusay, aad u qurux badan, garmadow oo isku xiran oo si qurxoon u jaran. wuxuu ahaa hogaamiye Xamaas oo soo baxaya oo go'yaashii ama sanadihii la soo dhaafay noqday nacabka ugu weyn ee Israa'iil. kadib markii Yaasir Carafaad iyo Yitzhak Rabin ay tallaabay u qaadeen dhinaca nabadda, kadibna ay saxiixeen heshiiskii Oslo September sanadkii 1999. madaxda Muusaad ayaa go'aan ku gaartay in la dilo Khalid Mashcal kadib markii qarax ismiidaamin ah 30 Juulaay sanadkii 1997 oo 2 Falastiiniyiin ah ay isku qarxiyeen sayladda Mahane Yahuuda ee aadka dadka ay ugu badan yihiin. 16 ruux ayaa geeriyootay, 169 kalena way ku dhaawacmeen weerarkaasi. madaxa wasiirada oo xilligaasi uu ahaa Benjamin Netanyahu ayaa kulan degdega isugu yeeray golihiisa si go'aan looga gaaro in la dilo mid ka mid ah hoggaanka Xamaas. madaxa Muusaad General Dani Yatom oo xilkaasi qabtay sanadkii 1996 ayaa Netanyahu waxa uu xil saaray inuu soo dooro ninkii la dili lahaa. Yatom waxa uu ahaa nin gaaban oo murqa leh oo bidaartiisana dadku wada arkayaan. wax badan ayuu ciidan soo ahaa. wuxuu ahaa nin lagu yaqaanay inuu dagaalyahan yahay. wuxuuna ahaan jiray ku-xigeenka madaxa ciidamada Sayaarat Matkal, kadibna madaxa xarunta dhexe ee hoggaanka ciidanka. wuxuu ahaa sarreeyo guuto, isagoo aad ula dhacsanaa, daacadna u ahaa madaxii wasiirada. sidoo kale wuxuu ahaa la taliyihii ciidamada ee ra'iisul wasaarihii nabadda la saxiixday Yaasir Carafaad. Rabin markii uu geeriyooday, dad badan ayaa la yaab ay ku noqotay in Yatom laga dhigay madaxa Muusaad. dadkii yaqaanay aad ayay u qadarin jireen ciidan ahaantiisa iyo howlqabadkiisaba, balse wuxuu ula muuqday nin aanan u qalmin inuu noqdo madaxa urur sirdoon ama uusan lahayn caynad ama suurad nin sirdoon ah. waxayna u muuqatay in xilka uu ku helay maamuus la maamuusayo Rabin ee yaa u qalma oo aqoon leh laguma dooran. kulankii uu Netanyahu la yeeshay bilowgii bishii Agoosto sanadkii 1997 kadib, Yatom wuxuu si degdeg ah isugu yeeray madaxda laamaha waaweyn ee Muusaad, waxaana xilligaasi dadkii u yeeray ka mid ahaa Uza Magen, ku-xigeenka Yatom ee qaybta B, ahaana madaxii qaybta howlgallada gaarka ah. waxaa kaloo uu yeeray Yitzhak Bersani, madaxii Tel Aviv ee qaybta iskaashiga sirdoonada qalaad. Ilan Mizrahi waxa uu ahaa qaybta xog soo ururinta iyo kuwo kale. Muusaad ma aysan haynin liiska madaxda Xamaas oo dhan. madaxa ugu sarreeya waxa uu ahaa Muuse Maxamed Abu Marzuuq, balse waxa uu sitay baasaboor Ameerikaana. haddii wax la gaarsiiyana waxaa ka dhalan karaysay isku cakirnaan ka dhalatay Israa'iil iyo Maraykanka dhexdooda. sidaasi daraaddeed si buuxda ayaa la iskugu raacay in la dilo Khalid Mashcal oo xafiiskiisa uu ku yaala Ammaan. balse markii Rabin iyo Urdun ay kala saxiixdeen heshiis nabadeed Oktoobar sanadkii 1994 ayaa madaxa wasiirada oo xilligaasi uu ahaa Rabin waxa uu ka mamnuucay Muusaad in howlgal ay ka fuliso gudaha dalka Urdun. Yatom wuxuu ahaan jiray xoghaynta dhinaca ciidamada ee Rabin oo xilligaasi ra'iisul wasaare ahaa, oo amarada Rabin si toos ah ayuu u fulin jiray. markii Muusaad uu madax ka noqdayna waxa uu iska dhigatiray arrintii Urdun iyo sidoo kale in howlgal aan laga dhex samayn karin gudaha dalkaasi Urdun. waxaana uu Netanyahu u gudbiyay magaca Khalid Mashcal. Netanyahuna waa uu ogolaaday, balse waxa uu uga digay in wax ceeba aysan ka imaan oo si qarsoodi oo buuxda oo degan loo fuliyo howlgalka, toogashana aysan meesha aysan ka muuqan. halkaa inoo joogto macluumaadka koobaad, bartilmaameedkii Khalid Mashcal. qaybtan xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo. halkan waa Maracadda Show ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon.